Guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Wicdi Injineer Faysal Cali Xuseen oo ah musharaxa xisbigaasi u tartamaya doorashada sanadkan ayaa maanta booqasho rasmi ah ku gala-bixiyey dhakhtarka weyn ee Hargeysa isagoo booqday qaybo ka mid ah qaybaha uu ka kooban yahay dhakhtarku oo ay ka mid tahay qaybta bukaan socodka halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen dhakhaatiirta dadka u adeegayey oo meesha ku xaadirka ahaa wakhtigaasi. Injineerka ayaa u soo jeediyey dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ku sugnaa xarunta dhakhtarka Hargeysa in ay dadka u turaan islamarkaana si fiican ugu adeegaan isagoo aada ugu hambaliyeeyey shaqada fiican ee dadka u hayaan islamarkaana ku bogaadiyey inay sii bilaabaan shaqada fiican ee ay hayaan iyadoo aad moodo baryahan dambe dhakhtarka weyn ee